بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيارة الشرفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا تصالها نولشا وكلا سعودنا الصومالي كيبل وحان كايا هضينا مانتا كهورتاقا خطرتا قويسكا كسو وجهان أيان كهضينا maxaa qoyska khatar gelin kara ayaa laga hadlayaa qoysku waa inuu dhisnaado oo nabad ahaado muhiim ba inoo wada tahay waxa marka la rabaa aragti cad inay ninka iyo gabadha isguursaday ama lamaanuhu aragti cad inuu ka leeyahay khataraha ugu waaweyn ee ku soo wajahan waxa marka isweydiin la khataraha ugu waaweyn ee ku soo wajahan maxay yihiin khataraha ugu waaweyn ee ku soo wajahan xagee ka yimaadaan waa su'aal طبعا khatarta ugu badan waxay ka imaanaysaa dadka adiga kuugu dhow labadiina dadka ugu dhow ee khatarta ugu weyn ka imaanaysaa طبعا markii dad badan aan su'aasha warsaday waayaha qaarkood imtixaanka way ku wada dhaceen maxaa adiga khatarta ugu weyn uu yahay ee guriga ku soo wajahan badana arki maysa ruux leh hooyaday baa halis ugu ah aabahay baa halis ugu ah walaalkay baa igu ah abti baa igu ah adeer baa igu ah dad saadahaya ma jiro dad sida dhahaya ma jiro saadaradeed khatarta ugu weyn waxay ka imaanaysaa dadka adiga kuugu dhow dadka lamaanahan dadka ugu soo dhow bay ka imaanaysaa sababtu waxa weeye dhalinyaro isku cusub waaye labada dhinacna waxa kaga jira dadkii iyaga ay ka yimaadeen wali waxa ayna aad u fahamsaneen noloshoodu qaabkay tahay in badan si dhib yar uma fahamsana wali warkii aabo iyo hooyo iyo ayaa la culus guud ahaan aabiyo hooyo in baari loo noqdo laakiin gurigoodii ma aha waa in aad loo fahmo intaas yani in baari loo noqdo waa muhiim laakiin gurigoodii ma waa guri dad kale haddii marka wiilka gabadha isguursaday aysan waardiye ka haynin dadka ugu dhow khatarta meesha ka imaanayso waa meeshaas waaye sirtaada yaa og marka sirtaada waxa og walaalaha ilmaadeerada dad aad ku kalsoon tahay dhinaca kalena aadan khatar ka malaysanaynin kaaga imaanaysa meeshaas waaye sirtii way og yihiin shakina kama qabtido waa dad aad jeceshahayo inay mushkila kaaga imaanayso adigu ma rumaysnid wax la yaab la waaye marka inay mushkila kaaga imaanayso adigu ma rumaysnid taas marka waxay keenaysaa inaadan taxafud ka samaynin oodan adigu ka digtooneen iyaga si dhib yar adigu sheegayso noloshii reerkaaga noloshiina dhaqaalaha saad u damacsan tahay oo dhan khidadkaaga oo dhan ayaad u sheegi dadkan in kamida marka ama farsamo xumo ama xasad ama waxaysan raali ka ahayn hooyo mesela wiilkeedii gabadhii ay kala tagtay oo kale maamooyinka qaarkood saasay u arkayaanba yani wiilkii gabadh buu guursaday wiilkii marka se iyadu u guursatay nin kale iyadu aabbay soo guursatay adiguna gabadhaad guursatay may hooyo waxay leedahay wiilkayga waa laga qaatay wiilkiiba u imaan iska furbeelaatan macnay ku fadhida malaha intaasoo dad ah oo nin walba og yahay baa jira طبعا anigu طبعا shaki male xaalad badan oo soo martay oo aan heshiisiyay ama aan dhex galay baa jirta markaad hoos u warsato dadkii aan sirta laga malaysanaynin ee khatarta laga malaysanaynin oo sirtaada dhan ogaa dadkaas ayay ka imaanaysaa waxa marka muhiim u ah reeraha cusub maxaa muhiim u ah oo guri liibaan inay dhistaan go'aan ku qaatay oo raba inay xaqiiqo ku noolaadaan waxa inay ogaadaan inay mashaakil badan uga imaan karto dadkooda ay jecel yihiin inay mashaakil u iman karaan waa inay ogaadaan labada maslaxo marka oo wiilka gabadha waa isku tiirsan yihiin laakiin labadii waalid ama afartii waalid ama walaalaha shardi maaha inay saa ku arkaan adiga yani labadiina waxa dhigi karta midka daraf kale inuu arko inuu madluum ku yahay oo gabadhii laga qaatay ama wiilka laga qaatay oo aan waxba lagu falaynin sidaas oo kale labada waalid marka oo caruurtoodu isguursatay raali hadday ka wada noqdaan waa nasi wanaagii la rabay waayo laakiin hadday raali ka noqon waayaan sababtu wax kasta ha ahaato maxaa xal ah waqti hore oo guurkuna cusub yahay ay tahay noloshiina cusubtaa tahay
maxaa xal ah marka seed uga hortagaysaan yani meeshaas marka meesha mashaakilka badan waa meeshaas waay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi guryaha ayaan la iska soo gelin iyaaku wadukhuul cala nisaa yani fiiri marka la leeyahay cala nisaa waxaa laga wadaa waa guriga cumqigiisii guriga waxaa sal u ah hooyo ninku badan guriga uu ka maqan yahayba marka guryaha wuxuu yidhi yaan la iska soo gelin annisaa waxaa laga wadaa waa gurigii waay markuu nabigu marka yidhi yaan dumarka la iskaga soo gelin yani isagoo moogtahay aan ballan lala lahayn isagoo waxba ahayn si fawdo ah yaan guryaha loo soo jeerin dadka saasuu yidhi nin marka reer ansaara ayaa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi bal ka warran buu yidhi qaraabada yani gabadha aabbaheed ama wiilka aabbihii dadka ugu dhoway alxamu ka warran buu yidhi yani qaraabada waxaa waaye labada daraf ka imaanaysaa aqrab naas dadka ugu dhow gabadha iyo wiilka isguursaday ayaa alxamu la yidhaahdaa ka warran buu yidhi dadkaas iyaga ah may dadka la siman yihiin oo in waxaa weeye waalidku gabadha wiilkiisu qabo maba geeyaba oo de waaba caadi maba guursan karo xumaanna ma laga malaysanaayo haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi alxamu almowtu buu dhahay meesha dhibtuba ka imaanba waa dadka idinku dhow buu dhahay dadka qaraabadiinna ah ayaa geerida guryaha iyo burburka guryaha meeshu ka imaan waa meeshaas weli waa xadiid u bukhaari iyo ay muslim wariyeenoo xoog badan waaye saa daraaddeed in la iska soo gala guryaha oo fiiri guryaha si fawda ah loogu noolaado nabigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday nabigu wuxuu yidhi gurigaas si khalad ayaan loo soo gelin marnaba rag iyo dumar nin iyo dumar oo keligoo isa joogana dabcan waa la mamnuucay oo lama ogola sababtu waa maxay waxaa la diidayaa nin iyo dumar waa meel shaki u ka jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixdaa ummahaat almu'miniin la taagan markay laba wiilo ansaar ay arkeen ayay intay carreen bay dhaheen nabigii bay ka carreen markaas u yeedhay uu yidhi xaggeed aadeen wuxuu yidhi waa umma almu'miniin buu dhahay ruuxan ila taaganay ruux kale ma aha leanno in rag iyo dumar ay isku keliyaystaan aan maxram isu ahayn ama aan isqabin ama aan isdhalin ma fiicna haddii marka guryaha aan la ilaalinin mashaakilka guryaha waa badanayaan saa daraaddeed aabbo iyo hooyo waa dadkii ugu dhowaa khaasatan waalidka raggii ayaa waxaa la guryaha aysan iska imaanin baa layidhi waxaa la diidayaa guryaha ceebtooda inay arkaan ama sirtooda ay fidiyaan ama waxaaba dhici kartaba intuu yimaado gabadhaaba maarata inuu wiilka hadhow si uun ugu diro wax aan dhici karin ma laha marka nabigu wuxuu u leeyahay dadka idinku dhow oo waalidkiina ayaaba mushkiladu meeshay ka imaanaysa wuxuu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam xaqiiqada ayuu nabigu ina tusinayaa xaqiiqa inaga mararka qaarkood aanay noo muuqanin ayuu ina tusinayaa saadil xaqiiqadaasi waa maxay waxaa weeye dadka idinku dhoweeya mushkiladiinnu in marka waaridiya dadkaa laga hayo ayay u baahan tahay oo fiir aynaan ku khaldamin dadka iyaga ah aynaan u malaynin inaysan mushkila meesha ka imaanaynin dadka marka aqaaribta ah iyo asdiqada iyo dadka ku dhow iyo dadka shaqada ka dhaxayso oodan cuqda ka qabin waxaa adoon cuqda ka qabin gurigaagana si qalad ah iyaysan isaga imaanin oo saacad aadan adigu raalli ka ahayn oodan fasax adigu siinin yaysan imaanin حتى والدك وحارة فصح لسيو واحد نبغى يلاذا ماله محاجرة أبا ما أنت وان كو إيمان دورا مال الهبلة أجو إسوا أجوري يا شاهي يا أنتدي لوسي ديار جريه يو إيمانا يا إسوا ويلك يا جوادي أي رال إسكيهين أيو إيمانا يا سيد أسا مركب فيري ست نبيار أيو جوري سي مركب أجوجا يا إسوا عقدو يا مشكلة يا وحبق بين ساسا مركب وحال ربا إن جوريها اللوجا إلى عليو خطرت وين إيمان كرتا وإنك لحظة كإيمان كرتا إنسان لوجا إلى علي أيال ربا هدي مركب عاد مقشو جوريها عدويس كوباد وأيو ساء النبي وشيء ويو دتك كوجلو لأنه دتك أديك كافوق ما بكو إيمانيان با ما كو إيمانيان سيرت هذا أوجادان ما بلها ست نبي أدنى وما آمنيسيد وحاصل مركب الأسكواد الضرب وحاوي قضية كساب سن مركب جوريها سيرتي سئل إلى عليو وقضية خطرة وآدي آد إلا أوجادو
sirta guriga inay tahay wax muqaddasa ruux kale inuusan ogaanin ayaana la rabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh